madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa safar dhulka uga amabaxay magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug. wararku waxay sheegayaan in madaxweyne xaaf uu aaday magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug isagoo horey usii galbiyeen ciidamo ku sugnaa duleedka magaalada dhuusamareeb. ciidamada ku sugnaa duleedka magaalada dhuusamareeb waxay ahaayeen kuwa kasoo tegay magaalada gaalkacyo iyaga oo doonaya inay galbiyaan madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf, balse loo diiday inay gudaha usoo galaan magaalada dhuusamareeb. dadaalo lagu doonaya inay wadahadal toosa ku yeeshaan magaalada dhuusamareeb wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka cabdi maxamed sabriye iyo madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa guuldareystay. hase yeeshee wadahadal waxa uu wasiirku la yeeshay madaxda xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir. ka tagitaanka magaalada dhuusamareeb ee madaxweyne xaaf ayaa imaaneysa kadib markii magaaladaasi ay ka tageen wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya iyo madaxa xukuumadda galmudug, kuwaasi oo howlo nabadeed uga amabaxay magaalada matabaan oo ka tirsan gobolka hiiraan ee maamulka hirshabelle. sidoo kale wararka aan ka helayno magaalada dhuusamareeb waxay sheegayaan in halkaasi ay gaareen ilaalada gaarka ee ra-iisul wasaare xasan cali kheyre, iyada oo la filayo maalmaha soo socda inuu gaaro ra-iisul wasaaraha magaalada dhuusamareeb ee maamulka galmudug.